نبي وحي صلوات ربي وسلامه عليه من يأخذ مني 5 خصال شن خصل ضياء قاضنا يقول ويعمل بهن كعمل فلايو أو يعلم من يعمل بهن أما برايو قف كعمل فلا أبو هريرة أرضي وناكسن والنبي أن فاروق 4 سنة كدي ولا جوغي 5 كن يدور حديث أيو كوريي markas saba nabigu weydiin jiray nabi allah arrinka maxaa laga wadaa isla markii gacantu taag wuxuu yiri ana ya rasuulallah nabigana salawaatu rabbi wa salaamu alayhi gacanta ayuu qabtay abu hurayra naxariista macalinka laga rabo way macalinka inuusan la taagnaan markastaba ciyaalka ama dadka uu wax barayo ku qayrin markasto laakiin naxariista iyo wanaaga gacantiisu qabtay markaasuu wuxuu yiri fa'addahunna ay gacantayda ayuu ku tiriyay 5 khasladood tusaa gacantiisa u qabtay buu wuxuu ku yiri abu hurayra ittaqil maharim takun a'bad an-nas maharimta iska ilaali kafago wuxuu alla subhanahu wa ta'ala ka xarimay takun waxaad noqonaysaa أعبد الناس دتك كان أوجع عبادة ونكسن ثم وحكيري مدلبات وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وحد كرة للنقطة الله سبحانه وتعالى وحا أوكسيي أوكو قيبي رزقي تكن وحد نقن أغنى الناس دتك كان أوجع تاجر سن أياد نقنيسا كذب وحكيري وأحسن إلى جارك درس كذا وناج تكن مؤمنا مؤمن بانقنية مدى أفراد وأحب للناس ما تحب لنفسك دتكنا وحد لجعلاتا وحد نفتاذ لجع الشيء مدى الشناد ولا تكثر الضحك قصلك هبضن فإن كثرة الضحك تميت القلب قصلك بضن قلبك أيود الله شنتا الشيء أيو النبي صلوات ربي وسلامه عليه أبو هريرة الشيء أنا قلت وانا ينوت شنتا قفك إلالية وحبذا أيو إلالي اتق المحارم اسك إلالي حارانت تكن واحد نقنسا أعبد الناس دتك كانوا عبادة ونكسن عبادة ما أحكي إنات صلاة إيا صونك إيا خيرك إنات سميسو قرآن أخرسو وعباده وما لها أقوى نكسن لكن دتك بضن كود صلاة وأفضل ده منافقين تمو يعني صونك وفضل يعني قرآن أخرسك وفضل يعني لكن حارانت إن لإسك إلاليه ولإسك إلاليه وحيابه الله سبحانه وتعالى نغرى بيتاسا نغو أذك قف كستبدي بالصفيري إلهي وحوك لي قبيالة إسكدا إلهي وحوك لي إلالي عرب كذا إلالي إلهي وحوك لي كبير كإسك إلالي إسكدا إن هذا الله أفكار وحوناك سنة كصوبحان محارمت الله سبحانه وتعالى وحكار بي مكرر تونتي مسكديسي هذا اسك إلى ليسو تكن أعبد الناس دتكو حال نقول ساكن أو عبادة ونكسن عبادة وحلية عمر بن عبد العزيز صلاة بدن إيه صوم بدن ما أهبوا ليه إيمان كي عبادة بدن لكن إن الله سبحانه وتعالى وحو أمري الله تمادو واجبك وحو الله سبحانه وتعالى كاربينا أتكرب تونت
aadan oran annaga dhaqankeenaa sidaa ah maya sidaasay la tahay laakiin haddii lagu yidhaahdo ilaahay baa sidaan yidhi ilaahay baa waxaan kaa reebay alle waxaan ma ogola rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayaa reebay inaad ka joogsataa loo baahan yahay midda labaad wuxuu yidhi nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh warda bimaa qasama allahu lak raalli ku noqo alle wuxuu ku siiyey risqi ah takun aghna annaas waxaad noqon dadka kan ugu wanaagsan oo ugu hodansan oo ugu taajirsan ma aha taa inaan iska fadhiisano masaajidada wardiga aanu badinoo la shaqayso suuqa gal dadaal laakiin adigoo sidaa samaynaya ogow ilaahay wuxuu kuu qoray unbaa helaysaa haddii nin shalay kaa dambeeyey suuqa kaaga dambeeyey ama magaalada kaaga dambeeyey uu yimaado oo alle subxaana wa tacaala u barakeeyo xoolaha oo alle subxaana wa tacaala khasaa'in u furo miyaad caroonaysaa miyaa inaad bangi aaddo xaaraan soo qaadanaysaa miyaa been sheegaysaa saa adiguna ninka ula tartanto alhaakum الtakaathur xataa zurtum اlmaqaabir marka maxaa ka mashquuliyey khayrka iyo wanaaga wax badsasho marka ku qanac ilaahay wuxuu ku siiyey waxaana ogaataa wax kasta aad helaysid ilaahay baa kuu qoray laakiin dadaal baa lagaga baahan yahay haddaa intaa ku qanacdo dadka adiga ugu taajirsan adiga ugu wanaagsan haddii kale dadka kaa hooseeyo fuqarada ah ama dadka kaa hooseeyo waxba aan haysan waa ka santaagaysaa waxaad u aragtaa inay kaa hooseeyaan adiguna markaad u tagto kuwa xoolaha leh oo aad u malaysa inay kaa sareeyaan dulli ayaa noqonaysaa oo dhulkaas dhigaysaa fartaa lagugu yeerayaa waa lagu amrayaa waayo waxaad u haysataa inaad xoogaa wax ka heli doontid ku qanac wuxuu alle subxaana wa tacaala ku siiyey cizadaadana iyo sharaftaadana taasay ku jirtaa takun aghna annaas waxaa noqon dadka kan ugu taajirsan nebiga kadib wuxuu ku soo noqday jaarka oo mar kasta aad wada degan tihiin oo guriga kugu degan ama xaafadda aad degan tahay ama meesha aad ka shaqayso wanaaji maxaa dhacay haddaad wanaajiso takun mu'mina mu'min baa noqon sifaadka mu'minka waxaa lagu gartaa waa qof wanaagsan jaarkiisana u wanaagsan dariskiisa ilaaliya kadib wuxuu yidhi nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh midda afaraad wa axibba linnaasi maa tuxibbu linafsik dadka waxaad la jeclaataa waxa aad naftaada la jeceshahay dadku ha xasdin horumarka la jeclow khayrka la jeclow wanaagga la jeclow ku farax walaalka hadduu wax wanaagsan helo axibba linnaas maa tuxibbu linafsik naftaada maxaa la jeceshahay wanaag ha ku farxin walaalka xumaanta soo gaartay ha ku farxin walaalka waxa waaye dhibaatada ku dhacday bal inaad waxa waaye caawiso oo aad u sacyiso oo aad booqato oo aad u tagto isku day macnaha waxa weeye islaamnimadu iyo diinta ma aha keliya calaaqada adiga rabbigaada aad la leedahay mu'minka waxaa lagu gartaa suu dadka kale ula dhaqmo haddii dabeecaddaada ay adag tahay oo dabeecad adag masaajidka dadka joogo dhan waa dagaashantii xaafadda marka la tago waa lagaa qaylinaya carruurta haddii la weydiiyo sidoo kale taa iimaan ma ahane dib iskugu noqoway فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر أي نبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه لويري
midda shanaad ku soo gabagabeynay waxa weeye nabigu wuxuu yiri wala tukthiri dhahika qosolka habadin fa inna kathrat adh-dhahiki yumitu al-qalb qosolka badan qalbiga ayuu dilaa wax kastaba qosol baad ka raadinaysaa haddaad YouTube furto waxaad ku dhufanaysaa funny videos dhalinyarada rabo baryahan views ka badan inay lacag ku helaan waa inuu soo geliyaa wax dadka ka qosliya ama funny ah si dadku ay u qoslaan asagana u qoslo sidoo kale qofka inuu sameeyo waxyaabo baryahan nagu soo batay oo prank loo yaqaano wax kasta lagu sameeyay iyo xaaskiis oo guri wada joogo ayaa prank isku sameynaya si dadka ay u qoslaan adigu ma waxa lagu abuuray qosol ma waxa lagu abuuray in adduunka ku ciyaarto afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un ma waxaad u malayseen ina idii abuurno Allah subhanahu wa ta'ala leeyahay ciyaar wa annakum ilayna la turja'un حقنا الأسر نقولين فتعالى الله الملك الحق كولا ليال إلهي سبحانه وتعالى أنك بقى شنتا شيء اسكدي إناد كو عمل فشو حارنت اسكا إلالي حارنت اسكا إلالي وناق السمي إلهي سبحانه وتعالى خير كهنا وفجيه